odayaal iyo waxgarad warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa taageero u muujiyay shirkadda Som Cable waxaana cabasho ka muujiyeen dad ay sheegeen in ay diidanayeen xariga taawarka Som Cable waxgaradkan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa kamid ahaa hadaladoodii markii uu marayay ood weyne cable-ka xariga cable-ka waxa ku dhacay faraxumayn soo noqnoqotay oo aan marahayn oo aan laba ahayn oo aan saddex ahayn oo aan afar ahayn ba ku dhacay isku noqdo wax ka qabta baan idin leenahay wax ka qabta ayaanu idin leenahay xaal la ka bixiyo waxa baa mushtarka la yiraahaa ilmo nabi aadan oo dhan buu ka dhaxeeyaa iyana saaraba uu ka dhaxeeyaa iskasto ilmo nabi aadan inakuna dad yaro reer Soomaaliland la yiraahaa waynu nahay meel kasta mushtarku uu maraa iskasta way ka faa'iideysataa waa shaqaale ilaahay ummadda u diray iskastaabana way leedahay in loo nusbeeyo la yiraaho nin reer hebel ah laakiin baa mushtarku tan buu leeyahay oo faa'iido leeyahay qola male waayo dib ku koobnaan lahaa qola qola halka intaasaan ku dhaafayaa qodobka labaad inuu sii dawlad maaha maamulna ma haysto askarna malaha waana shicibku baa mushtara dawladda iyo shicibka iyo mushtarka in la kala gartaan waa wax fiican cable-ka odayaashu ay sheegeen aad ayaan uga xumahay cable-ka dhibaatada loo geystay isaga oo Soomaalilayna isaga oo cashuuran isaga oo tijaarta in wadanka kamida in isaga afar jeer la gooyo aad baan uga xumahay aad baa Soomaaliland iyo wixii waxgarad ay uga xuyihiin waxaan ku talin lahaa nabadgeliyadu qof walba wadan qof walba u dan weeyay ninka gurigiisa quraadiyo guriga reeraha kala tuurtuurin baa leeyahay deelo waaba quraaradu waa laga jabinaya wala iska jabin karaya laakiin wadanka dhaqaalo aan ka qaba anigu dhaqaalaan ka qaba waxaan leeyahay siday odayaasha hore sheegeen boolatis ka bixiya magdhow ka bixiya ka tanaasila xarigu hamaro Soomaaliland oo dhan dhacdada ka dhacday oodweyne cable-ka xariga halka soo maray ee shirkadda Somaliland maxamed oo saciid leeyahay qaranka Somaliland shakhsi walba halka oo maray wixii faa'iido ah ee uu leeyahay intii ilaahay uga calfi ka helayo ee sharciga ah arrinka dhacdada halka ka dhacday sidii u dhacday waxa raacay in dad meediyaha ka hadlaya oo taabanaya arrinka xanaf u yeelaya wixii xubi waa waxa wax ka qabtaana waa wax garad ninka waxa ku hadlaya ama dadka waxa ku hadlaya cid ay qusayso wax qabadkooda ee inay khalad tahay carabka ku bayaamin laha ee ficilka ku bayaamin laha ee ku wacan ee cid walba ka haboon waa cid la digaana ee wax dhimaashaas ay saamanayso ee cid uu wax leeyahay ee wax ku leeyahay la qaadanaysa waa arrinka cable-ka iyo reerood weyn weey hargeysana ma qosayso burcana ma qosayso meel kale ma qosayso hadalka intiisii badnayd odayaashii hore ay yidhi nuxurkiisa waa laga hadlay qabyo badan ma laha marka horeysa reerood weyni ha is weydiiyaan oo keliya bal cable-kan shirkaddan inuu siciid cable-ku waxay kaga duwantay shirkadaha kale iyo wuxuu ku haysto ay ku suufeen oo kula colaatamayaan taana sheegan taas waa mid talabaad waxaan u sheegay reerood weyni warbal ganacsatada ilaa Soomaaliland ka qaarad joogta ee isdhex maraysa ee ganacsatada inoo ah ee horumarka iyo wanaagga inoo wada reerood weyni culaada sugeeyina maxamed xasan diiriye maxamed joker telefishinka caalamiga Ariel TV Burco.